وإذن سلامي الأمانتيني هذا ني channel كواكسور نقضي مالمحان مسوق علين فيديو مسوق علينين صوبتو مشغول إيو وحبرشديا سيدمينويا سوزاس درتيسي بس مشغول عنقلي لكن ما أنت حدا محان أسوق عنصر إنتي أو أرين عصب إنت I think so بندقو وحاجة علان هاي إنتي أو كو إذن أهو كليني أو channel كان كسو بيرن وحد إذن دي لهاي هذا ومهد سنتهين هذا وفرحي هدي أو channel كان وح إذن ترايو قف كسيسين دلن يرتا حتى أما هو يوين والد أجرا وكل شيء وسيا channel كيجي معناها فافية هدي أو سمين كرتين هذا ومهد سنتهين وحاجة علان لهاي إنتي أو أنقارنو شنكن شنتاس كن مقاري كرنا لايك سبسكرايب كل سماء انتي او فيديو بدن انصر لغن ويقعاونا ما عندهم حاجة علان لهاي انتي كهتلو ما عندهم هرتا حاجة علان لهاي انتي كهتلو وحلا لهايو انوركسيا هرتا اهانتاد رباطة دو بحقارة قبلها حدثو كورايو وقبطنا لكن وانا لغن احاركي كرا ويلشا حتى لن يربس معها وحيكو دعي كرتا قف كستو و دا كستو والغي يابا انت ايكو حرمتا هاي ان قف كستو isku arkaayo kalsooni ahaantiisi iyo qofkaas uu fahmaayo quruxda cuntada horta ay cunayaan ay iska yareynayaan iyo waxa galaayo walwal badan oo ka socoto cuntada hadii qofkaas cunto cuno oo khada ama quraac marka ay cunayaan waxa ka soo dambaysa walwal badan saastartiisina waxay ka fikirayaan halihii oo calories ay ku jirto cuntadaas inta uu markasto isfiiriyo miisaankiisa haluhu uu dhanyaha ama haluhu uu macnaha culeyskiisa uu fiirinayo markasta oo laga yaabo markasta uu maraayad isku fiiriyo intuu arko qof oo weyn si kale korkiisa uu arka soo saastartiisi waxa waaye mental health condition maanta waxa jeclaan lahay sida ku ogaan kartiin iyo wixii oo adinka aad sameyn kartiin sida oo dadka oo anorexika hadii qof ka seesid si u caawin kartid sababtoo ah qofkan horta ahaantiisi sida uu joogo weight badan ka dhici kartaa nafsadiisa halis gali kartaa sababtoo ah cunto fiican iyo cuntada oo uroon macunaan so tan koo aan ka hadlaayo horta arimahan aan ka hadlaayo waxay ku xiran tahay daaweynta dabeecada karashada so cognitive behavioral therapy so saastartiisi tan koowaad aan ka hadlayna maanta waxa waaye qofkaas fikradiisa so fikradaha halihii ay waxay kamid yihiin iyo waxay qofkaas ka fikiraya camal so qofkaas wuxuu asi isku xukuma sida uu ekyahay iyo wixii uu cunaayo suu ekyahay so halaas dhan inta ay control ka qaataan cuntada nooci ay cunaya cuntada sida uu ektahay cuntada si loo haweenayo halihii la cunaayo halihii cuntada dhan tahay wax kale ay macnaha ay la socdaan waxa waaye xeerar adag oo ku saabsan xakameynta cuntada qaabka iyo miisaanka cuntada si loo sameynayo hadana iyo cuntada si loo habinayo hada yaaban inta ka fikiraan qofkaas wuxuu cuni karo iyo wixii oo cuni kari markaasna hadii ay arimahaas ay ka fikiraan ay ku dhaqmin inta laga yaabo inta ay iga dhan negative sida ay iska fikiraan ahaado inta ay iga dareemaan inta ay wax ay ku guuleysanin markaas ay iga dhan aragtidooda iga si isku arkaan dhan waxay noqonaysaa negative qofkana oo horta fikrada dhan oo waxay ugu badan waxa waaye controlkaas wax kasta way rabaan horta oo cuntada ka socoto inta ay controlaan halaasna waxay ay dhaxgali kartaa aragtidooda iyo waxay ay aaminsan yihiin laga yaabo fikrada oo ka socdo inta dadka kale ay rabaan inta ay cayiltinimo qof kale intuu ku sameynayo camal saasi aaminsan yihiin so halaas dhan waxa waaye halaha oo fikradaha waxa hadana ka hadla ahaantood sida ku fahmi kartid korkooda qofkaas haduu oo jiradan oo anorexia qofkaas oo macnaha haasto ama sida ku fahmi kartid jirada calaamadaha horta jirka waxa ku fahmi kartaa intii ay horta weight badan ay ka dhacdo qofkaas markasto ka dareemayo intuu jiran yahay ama qof oo mantag haya camal iska dareemayo markasto qofkaas dhaxan ahaya so saas korkiisu ka dareema iyo korkana skin coatna wuxuu noqonaa dry like qalal jirkooda qalal ay ka fahmayaan dhibaatada oo concentrationka ka yaraanayo hurdadooda ka halaabaysa nailka macnaha cidiyaha waxay noqonayaan weak and brittle cidiyaha way ka dilaacayaan like dilaac miyam way ka gogo'ayaan like brittle timaha xataa timaha way ka soo way ka dhadhacaysa kasto markasta qofkaas wuu daalan yahay daciif waaye muddo dheer hadii oo qofkaasaan uu isku socdo oo saan ku wado laga yaabo inta ay dhaawacaan kaliyaha jirada horta osteoporosis inta ay
ay ku dhacdo inta ay xataa wadnahooda ay wax gaarsiiyaan laga yaabaa haddii ay muddo dheer arrintan saan camal ay qofkan uu ku socdo. Qofka horta hadduu uu jiradan oo anorexia oo haasto oo la dagaaltamayo laga yaabo inta ay macnaha dareenkooda horta hoos u taalo iyagana khiiro badan iska dhex arkaan. halahan dhan waxaa ku arkaysaa horta qofkan intii arrintan ay ku adag tahay sida oo u caawin kari lahayd. haddii caawin karto qofkan caawi cunuga wiil ama gabar ha ahaato. haddii ilmaha aan ula shaqeynayo aaminsan yahay qofkaas cunugaas inta uu haasto eating disorder intii oo kow horta aad soo ogaatid waaye halihii ay maalintii ay cunaan. haddii qofkaas oo is mantajiyo haddii qofkaas sababta oo cuntada uu cunaynin hadduu cuntada ka fikirsan yahay intuu cayil ku ridaayo ama haddii iyaga si kale ay u fahansan yihiin hadduu qofkaas halihii ay weight ay ka dhacday bil halihii ay weight ka dhacday ama wiigiiba halihii weight ka dhaceyso halaas dhan intii oo soo ogaado waaye. markaas kadibna waxaa sameynaa intii oo qofka dadka teamka oo eating disorders team intii oo qofkaas professional yaal kale oo caawin karaan inta loo diro. so saas ani waa soo arkay. haddii maama Soomaali aad tahay adini horta koo waxa fiican inta ilmaha oo dhiirigelintood oo la badiyo oo kor loo saaro. haddiina ku aragtid cunugaagii ama cunugtaadii haddii ay eating disorder ay haasato inta caawis oo jiro oo caawiskaasna aad soo raadsatid oo cunugaas ula hadashid si oo xukun la-aan camal inta cunuga aad ula hadashidaa fiican oo si oo isfahan meesha ka yaalo oo qayle iyo waxaas dhan ay ugu jireen. cunugaasna inta ogeysiisid inta oo adi meesha u joogtid oo adig ula hadli karo oo adi macnaha wax u tari kartid. so halahaas dhanna way fiicantahay horta waalid ahaan intii halahan oo saan camalna ilmaha loola hadlo. dareenka dadka oo jirada anorexia iska dhex arkeen horta waa laga soo hadlay. haddana waxaan kasoo hadlaa dabeecada oo ku arki kartid. kow aad ku arkaysid waxa waaye controlkan waxay ka socotaa dhinaca cuntada halihii cunta ay cunayaan. so halaas dhan inta ay control gareeyaan waaye. kasoo qaad ahaan shimay cuntada cunayaan maxay cunayaan iyo halihii ay cuni lahaayeen iyo qofka ay cuni lahaayeen halaas dhan iyaga inta ay controlka haastaan asaasa ku arki kartaa. cunta qariyowna waa ka dhex arkaysaa sababtoo haddii cunta la cunayo camal hadda cuntada ay qaataan kor qolkood ay geystaan. cuntadaas adi ma ogtid waxay ku dhacaysid laga yaabo inta qashinka lagu tuuro laga yaabo inta ay bac ku shubaan hadhow qashinka lagu daraayo. so halahaas dhan waxay ka imaanaysaa inta loo arkin halihii ay cunta cunayaan. halaas cunta waxay cunayaan maybe hal mar ama laba mar ay cunayaan like wax yariis ay cunayaan oo yariis oo nafaqa dhan macnaha ugu dhex arki kareenin. so halaha kanana laga yaabo inta ay tuuraan. maxaa kale ka arki kartaa waxaa ka arki kartaa cuntada horta haddiiba cunta soo samaysid cuntada meesha yaasho yariis like gabal oo yariis ay u gogoynayaan sababtoo halahaas dhan waxay rabaan inta ay sida halihii ay cunayaan controlkood waaye. halahaas dhan inta ay control haastaan. tan kalena waxa waaye inta ay diidaan dad kale inta ay la cunaan. tan kalena ka fahmaysid waxa waaye ismantajinka sababtoo halihii ay cunaan haddii aaminsan yihiin cayil oo ku ridaa waa ismantajinayaan. tan kalena ku fahmi kartid waxa waaye waxay isticmaalayaan daawada caloosha oo daawayaasha oo macnaha caloosha loogu talagalay inta ay caloosha jilicsiiso ama kaniinida oo loogu talagalay alaabahaas haddii caloosha ku istaagtay sida oo caloosha loo wadaayo. so waxaas dhan ay haddana ay isticmaalayaan sida oo cuntada korkod ugu baxdo. taas dhanna behavior yaasha oo dadka oo eating disorderka oo anorexia waaye iyo kuwa kalena waa ku dhex arki kartaa laakiin maanta ahaan anorexia besaa ka hadlooya. maxaa keenay intii oo dadka oo jiradan haastaan inta ay saan macnaha bes ay ku socdaan markasto sababtoo horta kow wuxuu ka imaanaa inta aan wax idin soo saara haddii arkaysin waa idin fasira. so kow waxa waaye qofkaas wuxuu aaminsan yahay xarabaa intii oo khaliir aan noqdo oo dad kastana ay jeclaadaan. so intii weightka iska rido waaye iyo wixii cuna intii oo control gareeyo waaye. taasna haddana waxay sii aadaysaa fikrad kale oo cuntada laga fikiraayo cunto cuno markasta laga fikiraayo. haddana waxay sii soconaysaa cuntada intii control gareeyaan cuntada markasi u cunayaan markay cunayaan waxaas dhan. taasna haddana waxaa kusii xigaanaysaa inta ay korka
weight ka dhacdo qofkaas and then qofkaas hadan wuxuu ku farxaa qowdii wuxuu rabay inta ay weight ka dhacdo weight kaasna way ka dhacaysaa so hadan way si kordhaysaa hadan waxa soo galaysaa qofkan wuxuu fahmaa inta ay markasta calooshiisa macnaha bloated ay tahay korkiis qaboob yahay markasta oo noogsan yahay xanaaqiisa iska badnaanayo hadan wuxuu iska fahmaa butacaan ahay ama waa cayilsan yahay waxaan ahay weak macnaha qof daciif aan ahay so hadan wuxuu ku noqonaa qofkaas fikrada koodii fikradaasna ay ahayd ani inti qaliir aan noqdo waayo hadan uu sii wadaa hadan saas u soconaysid qofka noloshiisa dhan meel halisay galaysa sababtoo halahaas weight oo ka dhacay cuntada saan oo control gareynaysid ma ku fiicna horta waxa fiican korka intii nafaqo aad siisid qofkan oo cuntadana control gareynayo nafaqadii dhan iyo nolosha sida fiican oo korkood nafaqada u siinayaan dhan ay ka gaabinayaan ay ka yareynayaan halaho badanna weightna way ka dhacaysaa hadan saasi oo fikradii kale ay ku noqonayaan so qofkan laga yaabo halihii oo weight oo ka dhacdo haduu qofkan ahaan jiray 80 kilo oo hada oo yahay 60 kilo ama 50 kilo oo noqdo halahaas oo weight dhan ka dhacday wali ma joogayo ilaa iyo qofkan macnaha lafihiisi dhan oo ka dhax aragtid hal sabira inta soo galina hadii oo idinka halahan waxaan amal idin dhibaayo ha fiirinina laakiin tusaale ahaan soo qofka kan amal hada waxa ka arki kartaa intii ay naftooda halis ku jirto laakiin qof saan amal walina waxa iska dhax arkayaan iyaga intay cayilsan yihiin so tan waxa ku fahmaysaa inta qofkan horta si oo macnaha joosta amal u fikreen sababtoo tan waxa waaye jiradaasna waxay ka socotaa fikrad xumo waxa fiican intii ay qofkan caawis la siiyo inta xumida hadii aad iska dhax aragti xataa oo waxyar xataa hadii ahaato maxaa samayn kartaa oo isku caawinaysid ana joojisid fikradaas xun oo markasto wareegsanayso halaan dhan waxay ku xiran tahay CBT waxa fiican intii aday si fiican oo naxariis leh adina intii isla hadashid intii aday aamin aad lahaatid oo dhahdid ani saan waa samayn karaa ani waxa ahay qof xoog leh oo wax kasta oo niyaday aan gashto aan samayn karo tan waa macnaha arintan waa ka fahmooyaa inta ay arin fiican oo ahaynin arin oo cunto xumid fikradan sida ugu fikrayna waa bedeli karaa wixii aan ka samayn karana waa bedeli karaa so halaas an adi intii aad iska aaminsatid waaye oo aad in adi aad samayn kartid ma xasuusatiin maalintoo aan soo gelinay fikradaha oo xun oo wax noloshaada kaaga kordhinaynin so waxaa jira inta dadka ay qofka kale isku egsiyaan ay qushuuc ay dareemaan sababtoo waxay iska fahmayaan inta dadka kale ay macnaha isku ekaynin ama isla mid ahaynin ay rabaan inta qofkaas kale oo noqdo camal horta kootan isweydii waxa qof kale ma isku ekaysiinooya qof kale ma noloshiis fiirinooya aan rabaa intii anina iga camal aan noqdo si kale arintan u fiirin kartid ma jirtaa dhinac kale ka fiirin kartid ma jirtaa wax kale sameey so qof hadii aad adi qof oo aamin ku leedahid oo qof jeceshahid oo qof familkaaga kamid qofkaas cuntada waa la cuni kartaa qofkaas ula hadli kartaa hadiina aad iska dhax fahantid arintaadan arin ay macnaha qatar hadii ay tahay intii oo qof oo professional caawisaad ka soo raadsatid sababtoo saasa horta ku fiican iyo horta mar kastana isoo xasuusi intii oo waxaan la moodaayo wax kasta waa la moodaa horta ma jirto intii mar kasta macnaha hal arin leh oo lagu noolaado ma jirto bataas ma aqoolna ma aha wax kastana waa isbedelaysaa so is ogeysi amal ama is xasuusi intii ay hadana adin arintan hadii oo arintan ku noosheed ama hadii oo qof adi ka saysid arintan ku nool yahay qofkaas meesha u joog caawisna si hadii ay arintooda qofkaasna qatar tahay intii oo qof professional aad caawis ka raadsatiin horta taas fiican hadii waalid tahayna caawisi degdeg cunugaas ama cunugtaas u raadi hadii oo UK na degan tahay waxa caawiskaas ka raadin kartaa GP ga hadii u tagtid aad u sheegtid arimahan oo adi cunugan ka arkoosid ama cunugtaada ka arkoosid iyaga markaas ku caawinayaan meel oo macnaha loogu talagalay ay ku dirayaan iyaga assessment sameynayaan marka assessment kan sameeyaan hadan waxay ku dirayaan meel oo la dhahayo Child and Adolescent Mental Health Service oo CAMS meel la dhahayo so meesha lagu diraa meeshana NHS ku kamid yahay halaas ka soo gaabina maanta hadii videogan wax idin soo taro qof kale
ولا شيء قرية وتوسية سبسكرايب كي سماع هدي أو channel كعيوبك سو قيب كشل انتي أو جعلان هاي هدي أو كور وخالي كرنو وسبسكرايبر ك إلا إيه شان كون أنجين كرنو كجداس هدي أو كسو ضحي كرتين هذا أو فرحي لهاي انتا كسو قابلنا فيديو جان هدي جعلان هذا انتي وحيالك اللي أنك سو حطله إيسو قرأ وحصو دوا وحصو لقا انتا كسو قابلنا مع السلامة.